السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وعمر علي برغلي أنا كو هلا مقع حافظ إسريهم جالية بهذا إسبورتيغا آد بقى دي سلامي وحالي هاي كوب كان وكوب أو تاريخ مدة سو جري ودك الصوماليا لقد الجري غيرت سوق من قابسي كمدين دعر مهد أبو كر علي جمعالي غور هذا أو حملينا حضرنا حافظة وتاجر سنهاي وحدا بهذا نهاي إسبورتيغا أما بهذا حافظة نهاي آد بقى تاجرني وحنا لي هاي همبليو وحنا سلامة يا شعب كإمادي ويستيغا نورد كإيست كصوت كمل بكإمادين وحنا لي هقول أيها لي wata kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah gudoomiyaasha xaafadda Streeham sida u jeedaan maanta waxa waaye waxa ay u diyaar garoobayaan ciyaarihii marka dhinacaasna waxa ku ciyaaraysa kooxda ka imaaday Bristol dhinacaas kaleetana kooxaha u jeedaan waa kooxda General Daoud iyo kooxo kaleeto marka Afrika qodna faanola ay Soomaalidu tiraahdaa marka wayna sugi doonaa ciyaarta hadda ay bilaaban doontaa insha Allah odayaasha kasoo qaybgalayaasha ayaa iminka horteeda taagan balse waa aragtaa maanta ciyaaraha socda ما شاء الله عيار آدي أو تاريخ إيواي أو إف إيه الصومالي وكلا أو ليرا كوب جنرال داود تورنمنت وعلى شرف إيمونا إنه إماتن كينا ورياش غير ما هيقايا له أنا قبل مستر حسن إيو يا عبد القادر يري ما شاء الله مركز تورنمنت إلى عن كبر إنه نقول ديجو كي صعدوا تورنمنت وجد اللي قبتي وجود ديجينا وقبتي وحاكم ده إن السودوينتا الصومالي ده بلشي الصومالي ده إن جيل كان عصب لبارو دقنك إهدا سوماليد فوتبول كان لو ديرجلي وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وما سنتهي أنا إمك وحنا كل جرنا عياره كده عي مجالة لندن كرهان ستريهام ولو حسي كوب كجنرال داود إمك وحنا مقدا ويل يراس مرانت أنا كم ده ذلك الدجن ستريهام وحنا وكارليا درينكيس سيدوياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وايدن سلام سلام كديب وحان آد ugu faraxsana inaan ka soo qayb galo koobkii la qaban qaabiye General Daoud waxa sharaf weyn ii ah gudoomiyaha Streeham dacar oo garabkayga taagan oo koobkaanay iga wacay inaan imaado sharaf weyn ay tahay gudoomiyaha waa u mahad celinaya hawsha fiican uu qabtay oo Streeham u qabtay tiimamku uu soo saaray ka qayb galkaygana aadan ugu faraxsana oo ana maasantiin maxamed adin diiba samigayga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا مقعي محمد عمر علي سو ودقن حافظ استريهم وحنا كسوق قيب كلا كوب كجنرال داود والله سيد مارتي قيمة قايل وسوق قيب كلا هذا يوم مسجد وحنا ما هو خبر قابياش الدعر يمهد يو ما أنت خبر قابيس هذا يوم مسجد السلام عليكم ورحمة الله dhinaca kaleetana waxaa la kulanay agaasimaha isboortiga maamulka Puntland gobolka Bari haddaba Axmed Tigana oo asigana ah dadkii ka soo qayb galay ayaa iminka ka hadlaya qaabku uu u arko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز هوري تي فيجا iyo wariyaasha waa idin salaamaya aniga magacaygu Axmed Cabdalla Tigana waxaana agaasimaha guud ee dhalinyarada ciyaaraha ee Puntland maanta waxaan ku suganahay xafladan quruxda badan ee la furitaankii koobkii General Daoud maantana la isaga yimid dacalada dunida waa maalin qurux badan aad farxado leh waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaagno bulshada iyo dhalinyaradaba maalintan quruxda badan aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u mahad celinayaa dadkii isku soo abaabulay xoogooda geliyay maaragtay ay ahaatay inay hawshan qabtaan marka waa maalin farxadeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa waxaan ka soo qayb galnay ciyaarihii maanta ee koobka General Daoud maanta oo maalin fiican ah waxaan bogaadinaynaa ciyaartoydii ka soo qayb gashay kooxihii ka soo qayb galay waxaan kaloo hambalyo iyo bogaadin dheeraad u direynaa dadkii isku mashquuliyay ee soo abaabulay waxaan leenahay kuwa ha noqdo koobkii guuleysta kooxaha isugu yimidna waxaan faraynaa inay ciyaar wanaag iyo nadiif hal kulmaan waxaan filayaa Soomaalina marka xigta koob General Daoud in wadankii sida oo kale la isugu tago hadii Ilaahay yiraahdo waa tahay iminkana waxaan kulanay legend of the legend oo ismaraantana ah nin taariikh weyn ku leh qaranka Soomaaliyeed Xasan Xuseen oo ismaraantana ka ciyaari jiray kooxdii hore fiyaad oo ismaraantana iminka aanu la kulanay isagana soo qaban qaabiyay ciyaarihii ka dhacayay wadanka Qatar oo ismaraantana uu soo qaban qaabiyay dhalinyaradii sida weyneed u soo qaban qaabisay ciyaartii wanaagsaneed ayaa iminka fursad u yeelanay xasan bal ka waran kulankan oo maanta oo
lagu dabaaldegayo ama lagu xusaayo General Daawud oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro iskood isku soo xilqaantay marka sidee aragtaa bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan salaamayaa dhalinyarada dhan oo Soomaalida iyo wixii qaban qaabiyo isla markaasna waxaan rabay inaan meesha ka sheego fartiin ay fareen mataqaanaa Soomaali Football Federation oo hadda ku tala jiro inay hagaajiyaan dhinac kastana qolo walbana ay la kulmaan ay kubadda horumariyaan sida hadda waddanka ka socoto magacooda aniga ku hadlayo waxaan ku faraxsanahay in maartay waxyaabahan oo kale oo la sameeyo oo aad loogu dadaalo haddana waddanka aan u soconnaa insha Allah waddankan aan ka hagaajino qof walba oo annaga naga midane inay waddanka timaado wax geliso ay wax aqoontiisa ama maartay waa tahay sideed yacni marka qaab caynkee markaad imaaday ood aragtay ileen dhalinyaradu waxay isku soo qaban qaabiyeen kooxo fara badan oo ka kala yimid Yurub sida Sweden qaar ka imaaday Switzerland qaar ka imaaday Jarmalka iyo gobolada dalka Ingiriiska sida Bristol iyo waliba Manchester ay ka kala yimaadeen sidan oo dhan ayay isugu soo qaban qaabiyeen dhalinyaradu marka aragti ahaan waxaa tahay nin khabiir ah oo samaraantaana wax badan ku soo jiray isboortiga markaad aragtay maxaa kugu soo dhacay oo aad isleedahay waad ku kordhin kartaa horta runtii aniga waxaan u badnaa doonaa Soomaaliya insha Allah laakiin sidaa ma filayn inay maaragtay dhalinyarada ay saas kugu xiran yihiin aadaan ugu faraxsanahay hadda Soomaaliya waxaa ka socda wax fiican iyo wax fiican ka socdo oo mataqaanaa la horumarinayo ciyaarihii marka waxaan rajaynayaa hatta qaar badan oo ayaga ka mid dhalinyarada inay yimaadaan Soomaaliya ay siday u yimaadaan London oo kale hatta gudoomiyaha Cabdiqani wuu magacaabay wuu yiri waan soo dhaweynayaa shaqo fiican oo ka wadnaa meesha anigana waxaan ka tirsanahay guddigaas waxaan ka tirsanahay technical advisor waxaan ka salaamayaa saaxiibadayga Cali Shiini iyo Awil iyo nimanka la yiraahdo Cabdiqani iyo inta ila shaqayso dhan marka waxaan u sheegayaa anaana fartiintan gaarsiin doono oo u sheegi doono waxa meesha ka socdo iyo in ballanqaadkiina oo sheegay inaad tiraadeen waa mataqaan qol kasta noo yimaado waan soo dhaweynaynaa oo ciyaartooyda xataa inay noo yimaadaan oo mataqaan wax ka faa'iideysano waa tahay hal su'aalo kaleeto oo igu kaadhimay waxay tahay waxaad inoo sheegtay inaad ahayd ninkii soo qaban qaabiyey ciyaarihii iminka ka dhacayay waddanka Qatar oo samaraantaana dhalinyaro yaryar ay soo baxeen oo ay yihiin kuwa aad iyo aad tayo u leh marka qaabkee isugu soo aruuriseen oo ilaa waqti intaan ay inagu qaadatay horta nin barnaamijka waxaan noo keenay nin la yiraahdo Cabdirashiid oo reer Qatar oo Maxamed Saalax loo yaqaano ayaa noo keenay barnaamijka inay Qatar ay dadka casuuntay waxaa noo yeeray aniga iyo katiim badan la yiraahdo iyo macallimiin kale noo yeeray iskoolaadka dhamaan tagnay inta iskool ku taal xamar markaasaan ka soo xulnay allamintada markii la bilaabanay waxaa loo dhiibay iskood loo gartay in loo dhiibo oo wado maadaama aniga xataa aan soo baxaynay marka iskoodna maartay man magaca kula waay asana waa waday anaga laakiin dadka soo xula asaaski oo nimanka soo targetkooda soo gartay iyo nimanka ninka wax taraayo oo maartay mustaqbalka marka waxaan rajaynayaa in ciyaalkaas aan la kala daadin haddaan Soomaaliya ku laabtanay bishan gudaheeda tagaado Ilaahay raa aan maartay arrimahaas aan galno iyo inaan wax soo saarno idinkana sal idin sheegay oo fartiinteeda kugu faray oo gudoomiyaha kubadda cagta Soomaaliya oo dhahay qof walba oo mataqaana oo tiim oo Soomaaliya u taray waa inuu yimaada haddii timaadina asaga idinka ballan qaadan ana la fadhiyo markuu uu dhahay cid kastoo noo timaado waan casuumaynaa idinkeeda ku xirantaa marka anagana waxaan fartiintaasna waa gaarsiinayaa iyo wax fiican oo ka socda meeshan waa tahay dhalinyaradu way badan yihiin waxa ay ku kala nool yihiin qaaradda all of the world sidaad og tahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay jirtaa qaar ku koray qurbaha oo samaraantan dhalinyaradii ka ciyaaraysay Qatar oo kaleeto oo jecel inay iyagana ay ka barbar ciyaaraan walaalahooda oo aan fursad u helin oo iminkana jooga qurbaha joogaan laakiin jecel in waalidiintooda jecel yihiin in ay ku koox noqdaan oo samaraantan ay la barbar ciyaaraan kuwii gudaha joogay marka waalidiintaas oo kaleeto oo iminka iyaga qalbigooda ku jira sidee ula ciyaari karnaa ama sidee yani muxuu canugeena aan ugu beeri karnaa maadaama aad tahay mid ka mid a guddigii halkaasi ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim yani waa runta dhalinyarada meeshan joogaan iyo dhalinyarada xagga joogta isku hal maahan dhan kasto
dhalinyarada meeshan joogto waxbay heli karaan waxyaa wadi karaan laakiin waxaa aad iyo aad u mahad u leh in maaragtay soomaalida intooda badan ay hadda jecel yihiin maaragtay inay isla wada kulmaan haddii oo fursad loo helo haddii dhalinyarada meeshan ayagoo joogaan ay dalbadaan ayagoo meeshan jooga ay dalbadaan inay soomaaliya yimaadaan ay ka qayb galaan xataa soomaaliya meeshay degi lahayd xataa way u ballan qaaday hadduu qurbaha ku nool yahay haddii kale waa soomaaliya meeloo dega weymaayo hadduu rab xagga ku imaanaya oo u dheelayaa marka waxay ku xirantahay soo u jecel yahay soomaalinimada ay ku xirantahay asaga iyo waalidkiisba ay u jecel yihiin marka waxaan rajaynaynaa in mar kastaba ay la soo wada xiriiro oo guddigan oo la xiriiro mataqaanaa Soomaali double F mataqaanaa Somali Football Federation oo la xiriiro Somali Football Federation annaga waxay ballan qaadnaynaa in si fiican loo soo dhaweeyo sidoo gudoomiyayna oo ballan qaaday Ali Shiino iyo Cabdiqani marka ma leeyihiin meelo oo isheeg oo meel club ah oo kooxaha isugu yimaadaan oo samaraantan ciyaalkaasi tababar lagu siiyo ha waa leeyihiin hadda waxa waay mid stadi conis hore ay wal haysanay mid kale oo waxa la sameeyay mataqaanaa dhinaca koonfurta kala oo weyn oo mataqaanaa xataa xafiisadii iyo meel la seexday iyo laga sameeynayo oo mar dhow diyaar noqonayso yaa bixiyo marka qarashaadka waxa bixiyo mataqaanaa FIFA bixiso waa dhamay rabaa mataqaanaa dhulkan waa la dhamay wax dhan waa diyaar ومادسنتها هذه مادسنتها تويدي قرنكا هوري مطبعو بلا مطبعو لوغو مقعدري اسمرانتنا إمنكا كسو قيب قلي أما عيارتا لوغو حسايا كوبكا جلال داود سواركتان بسم الله الرحمن الرحيم runtii maanta waa maalin weyn ay noo tahay maxaa yeelay dhalinyarada reer South West Streatham ciyaar ay dhigayeen ay ugu magacdareen koobka Jalaal Daawud ayaan joognaa mana aha markii ugu horeysay ee koob sidaan oo kale ay dhigaan waa marar dhowr sano ay dhigeen annagana waa ka soo qayb gali jirnay maadaama baahda sportska Soomaaliyeed aan nahay ciyaartoydii hore marka runtii koobkaas annaga xusuus weyn ay noo tahay maxaa yeelay xilliyada aan dheeli jirnay Soomaaliya koobkii la dhigi jiray ayuu kamid ahaa labada koob ee waaweyn ee Soomaaliya la dheeli jiray ayuu kamid ahaa koobkan Jalaal Daawud wuxuuna ahaa nin taariikh weyn ku lahaa ummadda Soomaaliyeed oo nin oo micnaha wadanka u soo qabtay halgamaa weyn ah saas awadeeda magaciisa ayaa lagu xusaa koobkan Jalaal Daawud maantana waa u jeedaa ciyaartoydii hore odayaashii hore oo xilliyadii barsimaadkii ciyaari jiray ayaan maanta nala joogaan oo ay kamid yihiin Maxamed Ismaaciil Sayid Ruushka Daawud Jeeyo oo maaragtay laacibkayga saaxiibkayga Jeeyo u ciyaari jiray maanta meeshaan kula kulmay ciyaartoydii hore maaragtay Ciiro Xasan Xuseen Fiyaad marka Cabdiyaar ay joogo marka dhalinyaro dhan way joogo marka taasna waxa dareemi kartaa maaragtay in maaragtay koobkan oo yahay koob weyn wilina maaragtay maadaama baahda hore sportiga oo dhiigeen uu ku shaqeeyo wiliba marka saas awadeed ayaan ugu soo qayb galnay wixii karankeena oo maaragtay dadaalana oo aan sameyn karno dhalinyarada oo maaragtay hiili gubaaba ahna waa maaragtay waa la garab taaganahay عياري لوغو حسايا كوبكا جلال داود إمنكا هذا وحا فرصة أن ويلاني معلن صولا وسمرانتانا كبير كترسن ورباهينتا أنا كنت قصصي حاجة كمبيوتركا يوح والبا والله كرو ومعلن مركز تقلي كرا وأنا فرصة ويلاني أن صولا كوسو دواو SNT في وسمرانتانا فرصة أن ويلاني إن أنا كلنا عياراني سيدا واركتا مانتا كوحدة runtii fursaddan qaaliga ah ee siiseen aad ayaan ugu faraxsanahay waa sanadkii ugu horreysay ma ahan sanado badan ayaan ka soo qayb galnay koobkan Jalaal Daawud runtiina Jalaal Daawud qof walba waa yaqaanaa waa shakhsi Soomaali qiimo iyo sharaf ku lahaa marka koobkan Soomaaliya lagu dhigi jiray waa koob qiimo leh oo ay ka soo qayb galeen ciyaaryahano oo qaranka iyo naadiyadii ugu caansanaa waddanka Soomaaliya ka dheeli jiray saa ku aragtaan saaxiibkay Bilaa Cali oo ila taagan oo maaragtay ciyaaryahanadii Soomaaliya lagu jeclaa ah oo Jalaal Daawudna marar badan ka soo dheelay isla markaana soo qaaday marka runtii waa farxad dhalinyaro sidan u fara badan inay koonfurta magaalada London isugu yimaadaan kana soo qayb galaan ciyaarahan aad ayaan ugu faraxsanahay koobka Jalaal Daawud markii ugu horeysay London lagu qabtaa mise maya sanadad badan ayaa lagu qabtay 2 May xilliga fasaxyada lagu jiro ayaa inta badan la qabtaa waxaana si wadajir u soo dhalinyarada sportiga ee magaalada London koonfurta oo Dacar iyo Abuukar Cali Jimcaale iyo Mahad iyo dhammaan odayaasha oo dhan ayaa soo diyaariyay anagana gacan ayaan ka siinaa dhanka meediyaha Sweden ayaa laga yimid waxa laga yimid Denmark waxa laga yimid Manchester marka qof walba oo Soomaali ah oo yaqaan taariikhda Soomaaliya qaasatan Jalaal Daawud waa ka soo qayb galay odayaal waxa jira oo maaragtay sida adeer Abuukar Xuseen diiriye oo ahaa dadkii waaweynaa jeeyay Soomaaliya oo maanta ka soo qayb galay oo runtii wuxuu dhahay farxadeeda lama muujin karo marka waa farxad aad u weyn isdhexgalka dhalinyarada iyo xasuusta Jalaal Daawud oo ah shakhsi qiimo ku lahaa waddanka Soomaaliya waxaa tahay nin khabiir ah samaraantaana ku xeeldheer ciyaaraha waxaa jirtay hadda markii ciyaaro dhalinyaro ka qayb galeen waddanka Qatar oo ay guulo
oo la taaban kara ka soo hooyey oo ismaantana mustaqbal leh waxaad arkaysaa marka ciyaar kooxo kaleeto ama dhalinyaro kaleeto oo aan fursad u yeelanin marka sidee yacni muxuu ah kuwii qurbaha jooga iyo kuwii waddanka hadda ku nool la isugu keeni karaa ka khibiir ahaantaada wallaahi caruurta soomaaliyeed horta jaanis mar walba waa leeyihiin fursad oo qaali ayay leeyihiin maanta waxaa inta ku kulanteen aad aragteen cayaaryahan soomaaliyeed oo u cayaara waddanka qaranka ingiriiska under 18ka iyo kooxda Chelsea cayaar muqaal afgoy oo markaan uga sheekay taariikhda General Daoud yiri waa inay geysaa garoonka uu ka dhacay koobka General Daoud mukhtaar Soomaali qarankeeda haddii rasmi u dhisnaan lahaa waagay bilay u cayaari jireen u dhisnaan lahaa maanta kama dooran lahayn inuu cayaaro qaran ingiriis wuxuu cayaari lahaa qaranka Soomaali wiil badan oo Sweden ka ciyaara Norway Mareykanka Canada ka ciyaara ayaa jira fursadda kaliya waxay tahay in grassroots hoos laga soo bilaabo mukhtaar wuxuu soo bilaabay 7 sano jir ayuu soo bilaabay haddii hoos laga soo bilaabo ciyaaraha ilmaha waa la keenay laakiin cunuga markuu gaaro 14 sano 13 sano waa too late way wax uu laga qaban kara ma laakiin haddii la helo wiilashii sanadkan qadar ka ciyaareen ciyaarahan oo heerkaas ka gaareen waxa hubaal ah waddankan uu soo nabad ku sii socdo in la heli doono waagii barsamaadkii oo Soomaaliya ay ka qayb gali kartaa ciyaaraha carabta iyo ciyaaraha maaragtay Afrika ka dhaca sababtoo ah dhanka basketka kubadda kolayga aad ayaan ugu fiicnaa carabta aad ayaan uga baqan Afrika laakiin kubadda cagta waa la soo kordhin karaa haddii wada shaqayn hoos laga soo bilaabo markii la fiirsho markii la arkay ciyaarta ciyaalka yiriiska waxay la soo bixeen dardar aad u xoogan ismaraantaana dad fara badan oo aan filanaynin in ay heerkan ay soo gaarayaan ay ka yaabisay marka misleenahay waxay ku xiran tahay waalidiinta waayo marka cunuga uu gaaro 3 sano markii uu gaaro wuxuu jecel yahay in uu banooni ciyaaro ama uu waalidku uu dhaho soo bax banaanka iskula ciyaarno waalidkina muxuu ahaa aad uu leeyahay ama uu dhiibsanayo marka waalidiinta haddii la fiirsho wiilka markii uu canuga uu la soo baxo in uu hubigiisa u yahay ciyaarta inuu ciyaaro soo maahan in ay ku taageeraan waalidiinta runtii horta waalidka la'aantiis wax shaqaynaya male tusaale ahaan aniga wiilkayga 5 sano ayuu jiraa weekendiga waxaa qasab igu ah inaan subaxdii waagii hore aan soo tooso oo aan la taga garoomada oo tababarka lagu sameeyo ilmahana geedka Soomaalida waxay tiraahdaa markuu yar yahay ayaa la toosin karaa laakiin cunug meeshuu ku gaaro 10 sano banooni lama bari karo basket lama bari karo waa in lagu bilaaba yuu noqon xataa timo ciyaar laakiin dhanka caafimaadkiisa dhanka disciplinekiisa wax walba ay u fiican tahay marka waxaa laga rabaa waalidka in cunuga meeshuu 5 sano ku soo gaaro in waqti aan la siinin ilmaha waxay ku bahalowbaan oo meel walba ay ku galaan gaangistiro noqdaan oo lagu dilaa oo aan arrin maalin walba waa iyagoo aan gacanta lagu qaban waa ilmaha in gacanta habeen iyo maalin lagu haayaa waa muhiim in training la geeyaa waa muhiim in hoos laga soo bilaabaa si markuu weynaado uu u noqdo qof discipliin leh oo waalidkiisa xishmayn kara sportkana ka qayb gali kara marka taasna waa muhiim wanaagsantaas iminkana waxaa la kulanay legend weyn oo ismaraantaana ah mukhtaar afgooye oo ismaraanta ka tirsan kooxda Chelsea qaybteeda ilmaha yar ismaraantana maanta la kulanay oo ka soo qayb galay koobka General Daoud sidee wartaan waa ku faraxsanahay koobka General Daoud koob fiican waay Soomaalida naas koomaatay balooni fiican dheeloyin waata iminkana fursad waxa uu yeelanay Shiina Guhaad oo ismaraantana ah macallin qaran oo qaranka Soomaaliya macallin u soo noqday ayaan fursad u yeelanay macallin ku soo dhawow waxa halka lagu qabanayaa koobka General Daoud oo lagu xuseeyo Allah u naxariistay General Daoud marka sidee wartaan aad ugu faraxsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in runtii ciyaarahan aad ugu faraxsanahay General Daoud halkan kama bilaaban ciyaartoydii dheeli jirtaan ka mid ahaa General Daoud koobka General Daoud Soomaaliya basketball kulletaba dhalinyarada qabanqaabinaysa Southka waa dhalinyaro firfircoon oo aad Abuukar Cali Jimcaale Mahad Dacar waa runtii rag sanad walba u diyaarsan inay dhigaan koobkaas runtiina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka aan ka soo qayb galay anoo fursaddan ka faa'iideysanahay maanta waxaan rabaa inaan iraahdo walaal afuri ramadaanka ay noo bilaabanay ambassador for walaal afuri London ayaan sanadkan ahay runtiina ummadda waxaan ka codsanayaa inay na taageerto ama ay runtii si sharaf leh ay noo taakulayaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad mahadsantahay waa tahay iminkana waxaan la kulanay Daoud Genyo oo ismaantana ka tirsanaa kooxdii hore Genyo oo ismaantana haatan marti ku ah London oo ka imaaday waddanka Talyaaniga
kana soo qayb galay cayaarta lagu xuseeyo allah u naxariiste General Daawud Cup haddaba see u aragtaan wallaahi bismillahi rahmaani rahiim waxaan u arkaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay martiqaadkan lagu martiqaaday waxaan u rajaynayaa haddii alla yidhaah bahda Soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay bahda isboortiga inaan sidaan si ka sii wanaagsan aan u tixgelino koobka General Daawud iyo ciyaaraha ayaan jeclahay haddii alla yidhaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا مالين وين جنرال داود كوب كلا الجوجا دلنياري والو ذا الجوجا الحمد لله ما شاء الله هذا أوقف فرح سنة إسقال دلنياري ما شاء الله هذا أوقف فرح ولي وحن جوجنا جرانكي لو قبني كوب كا جنرال داود لو قبتي مقالة لندن قارهان حافظة ونسود waxaan wareys la yeelanayaa ciyaaryahan ka mid ah ciyaartoydii kooxay u dheelaysay ama u tartamaysa koobkani magacaaga magacayga waa gacal maxamuud suuley gacal kooxday u dheelaysay kooxda General Daawud Streetham kooxda General Daawud oo koobka General Daawud loogu magac daray koox magaceeda ku dheelaysay ayaa u dheelaysay si fiican ilaa intay gaarteen ana group stage ka ku harnay laakiin waxa waaye ciyaar waa sanad ka dambeeyo waa ka sii roonaa doona waana ku qanacsan in group stage ka ku harno si shacabka oo u qaadanin koox iyo koobka isku magaca inaan anaga group ka soo bixin amba koobka aana qaadin aadi aniga iyo lagu qurux badan tahay bal waxaad iga warantaa dareenkaaga maadaama aad hore ugu qayb gashay koobkan haddana aad ka qayb galaysid sidaan u jeedo waxaad wadataa tuutay qaranka Soomaaliyeed rajo intee ayaad ka qabtaa in aad inta ka baxdo qarankaaga maadaama aad taakoon u baahan tahay loo baahan yahay inaad ciyaartooy dhalinyaro intaas aruustaan aad dalka dib ugu noqotaan rajo intee la eg ayaad ka qabtaa rajo weyn ka qabnaa arintaas waana ku guda jirnaa anagana already waxa waaye dad waaweyn aan nahay laakiin dhalinyarada soo bixaysa inaan waqti siino sports ku guubaabino ilaa ay heer fiican ay la gaarno arintaas aad iyo hadda ugu guda jirnaa kooxo badan oo hadda kooxda General Daawud magaceeda ku ciyaareyso aan hadda diyaarinayna oo under 17 ah weynaan baa sheegaysa anigana igama ka muuqato waa la weyn hadda kadib qaran ma loo ciyaari karo waa adag tahay haddaan la madax adeegin aad baad u mahadsantahay mudan wiish waa mahadsantahay habeen wanaagsan maadaama aan nahay ummad muslim ah sida caadada ahayd wax walba oo la bilaabayo waa inaan ku bilaabanaa aayadaha quraanka waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero tutor xooshay والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero Abuukar Ali Jumcaale oo ku hadlayo madaxa qabanqaabada xafladan quruxda badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله طبعا انت كسر قبل حفلتنا عاوة وأحد تركبتي كوبي General Daawud صلاة لها
waxaan idin leeyahay imaatinkii iyo wicitaanka aan idin lahaa ku mahadsantihiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abukar cali jimcaale ayagoo ay joogaan dhalinyaro ku cusub cayaaraha runtiina aan garan karno inay wadankii intuusa burbur ku jiray dibadaha ku koreen ayagana aan jeclaan lahayn inay bartaan dadka macallimiintii hore u ahaa dadkii ciyaaryahanada hore u ahaa ayagoo aan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo macallin muuse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiina waa salaamantihiin ciyaaraha maanta la qabtay ciyaaraha aad u fiican ay ahaayeen mar walba waxaan ku taliyaa sidee loo joogtayn lahaa tiradana loo badin lahaa ciyaaraha Soomaaliya ilaa hadda la qabto waxay u badan yihiin yaxmuddo gaaban la qabto sidii loo joogtayn lahaa way fiicnaan lahayd magaalooyinka maanta cayaaray inay horyaal joogta oo sanadle ah ay cayaaraan markaas xul fiican waa noo soo bixi lahaa ama Soomaaliya ka cayaaro ama integration la sameeyo dalkan. على أفضل أيام مكروف كسدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu faraxsanahay inta xafladan soo abaabushay koobkan Generaal Daawud iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay odayaasha haweenka sida loo buuxay maanta waxa waaye waa wax aad loogu farxo oo Soomaaliland ku farxayso marka waxaan kula talin lahay dhalinyarada maadaama ay badan yihiin dhalinyaro badan oo hadda maanta aan u jeednay oo aad iyo aad u fiican oo mustaqbal oo Soomaali iyo meel kasta ka qaban karaan marka waxaan codsi u soo jeedin lahay odayaasha ama waalidiinta oo hadda i maqlayso ama i daawanayso caruurta markay yaryar yihiin ha loo bilaabo in isboortiga lagu hogaamiyo si ay ugu badbaadaan waxyaalaha dhibaatada ah adigana future ilmahaaga ay u helaan waa mahadsantiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cali afgooye waxaa jiray dad badan oo ciyaaryahanno ahaa oo dibadda u soo baxay kadibna markii dambe go'aansaday inay dalka dib ugu noqdaan si ay khibradooda u geeyaan dalka taasoo looga baahan yahay shakhsi walba oo Soomaali ah in uu dalka dib u dhiskiisa qayb ka qaato waxay la soo dhaweysaan ciyaaryahan hore oo ka mid ah ciyaaryahanadii hore xulka qaranka Soomaaliyeed iyo naadigii wagad ama fiyaad runtiina ah hadda macalinka xulka qaranka ciyaarkii dhalinyarada ahaa soo abaabiyey ee qadar ka dhigay wacdaraha yaabka lahaa kuna aasaasay magaalada Muqdisho kadib markuu khibradiisa geeyey ila soo dhaweeya Xasan Xuseen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتي. وحشرف وإني أنا مانتا عن dhalinyaro Soomaali oo isku duuban oo kubadda si fiican u ciyaarayo fartiinta aan ka gaarsiin doono Soomaalina waxa waaye inay yihiin dad u soo jeedo inay kubadda Soomaaliya hore u mariyaan aniga hadda 2 sano ku maqnaa wadankii waxyaabo badan aan ka soo arkay waxaan jeclahay inaan maarka fartiintaan oo kale aan u faro dadkii ka shaqeynaya meeshaas oo Soomaalida kubadda jecel iyo wixii jecel kubadda waxaan jeclaan lahaa in aad samaysaan marmar xataa waddanka aad timaadaan aad maaragtay dalab soo barataan aad tiraadaan inaad timaadaan annagana waxaan ka dhinacsiinaynaa in si fiican idiin soo dhaweeyo oodna ku cayaartaan oo magaca Soomaaliya kor loo qaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad buu u mahadsan yahay Xasan Xuseen waxaan jeclaan lahaa in dadka kale oo khibradaha dibadaha la joogana inay sidiisoo kale dalka dib ugu noqdaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo shakhsi muddo badan ku howlanaa isboortiga Soomaaliyeed ahna ciyaaryahanadii hore barisimaadka soo maray naadigii tunka weynaa ee loo yaqaanay Jeeyo Cagaweyn horena u soo noqday gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ila soo dhaweeya Muxudiin Xasan Gaabow Muxudiin Gaabow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مر هدي محوها معلم موسى محمد ناصر أو كهلا يلقى أنك جونيور أيام نهاي وحنا ملاينا معلم موسى محمد ناصر ninkaas funaanada gaduudan oo koofida wata waaye haddaan macluumaad yar idinka siiyo wuxuu ahaa kooxihii lixdameeyihii qarankii kooxdii gaadiidka ama ootabaarka horyaalka soomaaliyeed ee aniga iyo sayga ruushkaba waa naga horreeyey isla markaasna jaamacaddii la foole macallimiinta physical educationka u qaabilsan iyo cilmiga maadiga iyo cilmiga footballkaba dadka bari jiro waay marka waxaan rabaa macallin muuse laylaydin yiri inaadan qaarkiin aadan mana dhalanina maxaa jira lixdameeyii oo ciyaarayay aniga toddobaatameeyii oo haysayga ana siyeetameeyii aan ahay marka waa la kala horreeyey waxaan marka jeclaan lahayn sida runta ah maanta kubad aan aad u jeclaysano aan aragnay aniga iyo macallin muuseba dadka kubadda ku xeel dheerna markay arkaan waxay jeclaystaan waa sheegaan lama qariyo maxaa jira isboortiga cadownimo ma galo mana laha cadownimona ma laha waxaan rabnaa marka in sida ugu dhaqsi badan guddigii maamulayay iyo guddiyada kaleba inay maaragtay ku dadaalaan dhallinyaradan aragna maanta in tababar joogto ah la siiyo ayaan talo ku soo jeedinaynaa sida macallinka hortay uu ugu soo jeediyey haddii dhallinyaradaas tababar joogto ah la siiyana waxaan hubaa in farsamadooda iyo muxuu ahaa kubadda ay yaqaanaan laga faa'iidaysan doono aan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka anna waxaan ahay dadka carradii ka yimid oo muqdisho joogay intaasoo sano dadka xagga ka wada hawshaan ahay 25 sano aniga kama soo bixin waddanka intana socod yaraanku hadda ku soo gaaray marka waxaan rajaynaynaa in saasoo kale sidii maanta aan aragnay loo sii wado cayaaraha iyo ay isdaba joogaan iyo tababaradaba waana ku mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay xudbuun darbaweyne axmed tigaan oo aad wada taqaanaan ahna agaasimaha maamulka isboortiga ee maamul goboleedka puntland بسم الله الرحمن الرحيم salaan iyo qadarin guud oo dhammaantiina kadib waxaan u mahad celinayaa guddigii qabaqaabada ee isku soo dubarhiday koobkan general daa'uud ee maanta aynu xafladiisa caawa halka u joogno waxaan kaloo qadarin iyo ixtiraam baan u gudbinayaa odayaasha iyo waxgaradka iyo bahda isboortiga ma rabo inaan wax badan idhaahdo waayo sayga ruushka iyo macallin shiino oors iyo rag badan baa jooga iyagaan u dhaafayaa waxa talada ah iyo dardaaranka anigu soomaaliyaan aaday waxaan u aadayna waxay ahayd isboortiga soomaaliya in la mideeyo in dadku ay muujiyaan tanaasul layskuna qadariyo si horumar loo gaadho marka waxaan codsanayaa qurba joogta waxaan kaloo idiin sheegaya in dhulkii la tago dhallinyarada joogta soomaaliyana la hormariyo waana mahadsantiin waxaan mahad celinayaa saaxiibadayda wambiley wambiley aaway cabdi axmed iyo ragga odayaasha hadday final yimaadaan lagama qaado baa la yidhi marka maanta way ka dhawaye waa idinku hambalyeynaya idinkana waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay agaasime axmed tigana maadaama aan dhanka ragga ku batay ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero cayaartoodii ayaan maaragtay dadka maamulka isboortigooda ayaa idinkala dhex bixi waaye bal dhanka taageerayaasha maadaama isboortiga mar walba uu ku dhisan yahay in la taageero la-aantiisana ay soconayn aan u jalaaco dhanka dumarka waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero gudoomiyaha ururka mother child welfare organization oo ah urur ka dhisan magaalada london runtiina u ololeeyo dhalinyarada xabsiyada oo aan ognahay in mar walba loo baahay in la taageero mrs naciima cali xareed
السلام عليكم وعليكم السلام سلامة مسلمك وحنا هذا ugu faraxsanahay maxaabiista meel kasta ay joogaan caruurta dib u noqon doonta inay maxaabiista la ciyaaraan meel kasta ay joogaan aad ayuu aniga taabtaa dhinaca maxaabiista aad ayuu u mahadsantahay qabanqaabada quruxda badan ee dadkii ka soo shaqeeyay cabdiraxmaan shiine gohaad بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أخيارتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مهدلة مرلبات وحا مهدلة تدكي اسكوكين كيري حفلة شرفت بدل رتي استريدها وحي نقطي leaders of sport نقدر وادتكي اسكوكيني غير دنمارك غير هولند غير فنلند اسكندنافيا كودن يوروب قاركود لندن ساوث ويست ايست نورث اسكوكينين وادتكي waxaa lagu ogaa xafladahaas oo kale inay dhigaan dadka weeska degan runtii weeska waa laga badiyey hadda sida aan u jeedo dacar iyo abubakar cali jimcaale iyo nacam iyo intii la shaqaysayba waxaan leeyahay runtii isboorti noocan oo kale oo intaan iskugu timaado mar hore idin ku dambaysay marka sidaas darteed waxaan leeyahay reer istiriyada ha jiraano ha joogaano ayagaa kulli tawliidisno hadda waan sugaynaa haddii ilaah yidhaahdo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay macalishiina waxaan jeclaan lahaa inay la soo dhaweysaan cayayaankii hore naadigii madacadda qaranka soomaaliyeed iyo gobolka banaadir kana yimid wadamada iskandinafiinka ismaaciil jamaica waxaa mahad ilaahay markiisa waxaa maxaad kale ragga ciyaaraha soo qabanqaabiyey Streatham anagoo meel fukarnay weli daabki baa lagu jira aad baa idin salaamaya gabadha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil jamaica waxaan ugu mahad celinayaa qof walba microfonka u dhiibo siduu isku halqaamayo oo labadii daqiiqa aad ugu dhamaysteen waxaan jeclaan lahaa in maadaama ciyaaryahanada aad u farbadiyey inaan kusoo dhaweeyo cayaaryaankii naadigii bohol maxamed orso legend runtii aan dhihi karo wuxuu isku dayey inuu maaragtay isboortiga soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta inuu isku keeno oo mid ka dhigo waxaa waaye oday runtii ka mid ahaa naadiyadii heer koowaad ee caanka ahaa howlaha guud ee guryeenta jeyo waxay la soo dhaweysaan wiilka dhalinta yar axmed nuur sayga ruushka waxaan salaamayaa idinku salaamayaa dadweynaha meesha isugu yimid oo qaybta isboortiska isugu yimid salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi horta waxaan u hambalyanayaa xafladan iyo koobkan dadkii qabanqaabadeeda suubiyey waxaan leeyahay hambalyo tan labaad waxaan u hambalyanayaa koobkii inaan qaadnay annaga haddaan nahay westiga haddii aan nahay wembley aan nahay uu hogaamiyo cabdi axmed iyo maxamed bugo ay nooyihiin ayagana sidoo kaleeto waa hambalyanaya ta kale waxaan rabaa inaan dardaarayo meesha aan ku darsado maadaama yani odaytinimadii mid la isiiyey ay noqotay
oo caawa ictiraafkeeda mid aqeena ay noqoto waxaa waaye dardaaranka waxaan rajaynayaa sida soomaali mar walba annaga markaa isu imaano waxaan dhahnaa waddankii maxaan ka qabanaynaa seen wax yeelaynaa seen ka yeelaynaa horta waddankii waxaan wax tari karnaa marka annaga aan wax isqabanno ama midaan wax isu tarna ay noqoto oo ubadka halkan jooga lagu badbaadiyo sidii ma aragtay maxaan dhihi lahaa cayaaraha ay ahaan lahayd sidii maxaan dhihi lahaa wax aan lahayd sidii soomaalinimada ay ahaan lahayd waxaasoo dhan guud ahaan midaan barra marka ay noqoto markaasaa maxaan dhihi lahaa midaan wax ka qaban doono ay noqoto iswaddanka marka waxaan leeyahay hadalkayga muhiimaddiisa wuxuu yahay meeshaan la leeyahay Streatham in lagu daydo waayo waa meesha keliya maanta nool oo cayaaro mar walba haddii munaasabado noqoto mid lagu qabtaa ay waxaa kaloo codsiga ah qofka markii uu wax qabanayo in la taageero oo la raaco oo la dhaho waxqabadkiisaas mid taageero loo hayo ay noqoto la tuso in wax lala wada laakiin ma aha in gadaal inta laga xagtoo la dhaho ma aragtay ama saan waaye ama kan waaye ama keen ama qabiil ama whatever wixii la doono ha lagu tilmaamo inay noqoto mid habboon ma ay aha marka waxaan leeyahay in la hambaliyayaa in allah ciddii maxaan ilaha wax qabanayso oo soomaalinimo ama dhallinyaranimo ama odaytinimo ama diin ama wax kulli wax ku qabanayso waxaan ilaahay ka baryaynaa in ma aragtay maxaan ilahaa taageerada siiyo waxaan reer Streatham aan mar labaad leeyahay hambalyo dhanka kale waa afhayeenka maamul goboleedka galmudug ee dalkan boqortooyada ingiriiska bismillahi rahmaani rahiim meesha la sheegay inaan ka ahay wakiilka galmudug iyo walaalkay iga horreeyay puntland waxaa la dhihi jiray markii hore markii booli la ciyaarayo haddii nin kala cararo ma mooda inuu qaalin geela igala cararo waa laga hali jiray waa asaga la iskala carari jiray boodiga hadda laakiin boodigay barteen waana dhex galeen waxaan gubaabinayaa marka isboortiga in aad mataqaanaa loo xoojiyo oo la tashjiiciyo sida hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo intaan waddada ay isugu yimaadeen wax aad u qiimo badan waaye waana waajib diini oo islaamiya in ilmaha lagu tarbiyeeyo isboortiga المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقال النبي عليه السلام قفك إسبورتي جسمي أهان إنه بحب ليهاي أو جنكي سفين أو يهاي هاتكيسي يدورسي بدر أو ليهاي مهم باي وحاكا يرانا يا حناقة وحاكا يرانا يا وحوى البر مركب وحان قبابنا يا إسبورتي قاس إن متقانا آد لو تتجيعي الله وحاي وحان isleeyahay soomaalida maanta integration waa ku sameyn karaa waana isugu soo dhawaan karaan isboortiga waa marka meel walbo aan joogno dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan ka abaabulno isdhexgal ku saabsan isboortiga qeybihiisa badan meeshaan hadda waxaa dominad gareeyay footballka in orodadii iyo lagdintii iyo fardafuulkii iyo intii olombigada looga qayb galayo oo dhan inaan ka wada qayb qaadana la rabaa oo aan ciyaarno caawa waxaan arkayaa inaan madi ku nahay dadka isboortiga guud bartay oo dhan meesha inay madi ku yihiin ani waxaan ka mid ahaa ardadii isboortiga oo ka soo baxay macadka jidhiska isboortiga waxaan u malaynaa dad badan inaysan aqoonin macadka jidhiska maxaa la dhahaa waddanka oo dhan hal meel uga yaallay muqdisho ah wuxuu uga yaala xaafadda jeneraal daa'uud koobkaan maanta la isugu xusaayo meesha xaafadeedu ku yaallay hal iskool oo ahaa halkaas iskool wuxuu toos u hoostigi jiray wasaaradda isboortiga waxaan dad yaraa yaqaano marka isboortiga ayaan la gablaminin hadda basketball oo dhan waxaa nala joogeen macaalishiina keliya orodiyahana iyo tennis iyo waa ka noqday in aad loo tashjiiciyo isboortiga oo dhan aan mataqaanaa insha allahu tacaala isku baraarujinaynaa gobolladeena oo dhanna inaan mataqaanaa arrintaas aad u abaabulno waa tashjiicinayaa maamulka puntland dowlad goboleedka puntland inay barnaamijkaas u timid ee waddo haddaan nahay reer galmudugna waxaan diyaarinahay inaan barnaamijkaas aan la xoojino tashjiicino aan qayb ka qaadan insha allahu tacaala barnaamijka caawa waxaa fududeeyey oo inuu saan u dhaco hirgeliyey london star travel oo aan la sheegin caawa dhan marka ciddii tigid goosanaysa insha allahu tacaala Australia la timaado London Star Travel oo idin fududeysa barnaamijkan waa mahadsantihiin